maayarka magaalada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse ayaa maanta waxa uu soo kormeeray dhismaha isbitaal laga yagleelayo deegaanka Kalabeer ee gobolka Gabiley. Isbitaalkan oo ay Kalabeer u dhisaso marwada dalka Jamhuuriyadda Djibouti Marwe Khadre Maxamuud Xayde ayaa isbitaalkii ugu horeeyay laga abuuro deegaankaasi. Waxaan isbitaalkan si weyn ugu baahnaa shacabka ku dhaqan deegaanka Kalabeer oo ah shacab tiro badan oo mar walba tabaya dhismaha xarun caafimaad oo lagu badbaadinayo dadka la ildaran baahiyaha caafimaadka. sidoo kale isbitaalkani waxa uu dabooli doonaa baahi dhanka caafimaadka ay shacabka reer Kalabeer ay u tagi jireen Gabiley iyo waliba Hargeysa oo in masaafo ka fog deegaanka taasina ay keeni jirtay arqalad ah in hooyadu ay ku fuuq baxdo jidka dhawaan ay ahayd markii marwada Djibouti shacabka reer Kalabeer ay u ballan qaaday in Kalabeer laga yagleelayo isbitaal rasmi ah oo kharashka ku baxaya isbitaalka ay bixinayso marwada dalka Djibouti. Geesta kale maayarka Gabiley oo kormeerka ujeedkiisu ahaa qaabka uu socdo dhismaha isbitaalka ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay qayb badan oo kamid ah shaqaalaha dhismaha isbitaalka kuwaasi oo gabayo amaana u soo jeediyay maayarka Gabiley Shacaib Maxamed Muuse. maayarkii dalkaygiyo Shacaib Maxamed Muuse mudanow magaalada adiga macneeyo musaskii yuguna iyo maangadkii ay taageen mudhada ka siiyo laamiyada la maraye madharadu dakeeyaan maamuloo sameeyo muslimiintu gabigood maamuus ku siiye mudano manabada meeshu Gabiley weeyo mugdigii madooba adiga ka saaro suuqa markaad maraysana landhabaad mooda mudano manabadba. inta kadib maayarka magaalada Gabiley oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay ujeedka uu taanaa kormeerkani. bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. waxaan kormeer ku nimid maanta isbitaalka Kalabeer oo runtii si fiican oo qurux badan oo habsamee shaqadu uga socoto. isbitaal weyn oo xisoo kordhinaya guud ahaan gobolka Gabiley gaar ahaan deegaanka Kalabeer oo markaad eegto waqtigii koobnaa shaqadiisu socotay iyo sidoo u dhamaaday si fiican looga shaqeeyay runtii. waxaan mahad celinaynaa marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Marwe Khadre Maxamuud Xayde oo iyadu bixisay ugu deeqday reer Kalabeer iyo reer Gabileyba isbitaalkan weyn ee qiimaha leh. waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha ku siiyo waad ku mahadsan tahay. isbitaalkana meel fiican buu marayaa qaybna jiingada waa la saaray qaybina wata kale imika jiingad saarkii u baxarsan iyo gabagabadii kulley markaa waxa kale isbahaadeeda la yeedna dadka reer Kalabeer ee dhulka bixiyay dhulka inta la ku deeqay dhakhtarka laga dhiso ee danta guud u bixiyana aad iyo aad mar walba u mahadsan yihiin. contractor-ka wada isaguna dhismaha dadajiyay ee tayada iyo quality-ga u yeelan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shaqaalihiisaba. waxaan u baahanahay in aqoon-yahanka iyo dadkii wax u bartay gobolkan ee reer Gabiley cilmiga dhakhtarnimada soo bartay inay maaragtay maalinkan maanta qaybtooda ka qaataan oo si voluntary ugu shaqeeyaan isbitaalka oo aqoontooda ay kula soo noqdaan oo ay dadkooda daweeyaan oo wax kale hadii la waayo toddobaadkii hal maalin bishii laba jeer dadkii digtoorada ahaa ee gobolkan wax soo bartay ay yimaadaan ay waqtigooda iska jaraan. dhakhtarada waaweyn ee reer Gabiley iyaguna yimaadaan sida Dr. Maxamed Yuusuf Dr. Abolos muxuu ahaa Dr. Mahdi dhakhtar fara badan oo Gabiley ka soo jeeda maaragtay Hargeysa Dr. Ahmed ayaa maaragtay kule aqoon fiican u leh marka Soomaaliland bal la eego marka in iyaguna yimaadaan aad iyo aad baan maaragtay uga rajaynaynaa. wax kastoo horumar oo bilaabmaana saas ku dhamaan doona insha Allah. Kalabeerna sidaan horeba u sheegay maanta mar hadduu isbitaalka u dhamaaday wixii kale aan u ballan qaaday anigu maayar ahaaneed miisaaniyadda qorshahan sanadka ugu jira waan sixinay isna uu ku jira haday saldhig tahay haday muxuu ahaa tahay bahashii kale xarunta dawladda hoose wixii Kalabeer miisaaniyadda sanadka ugu jirana iyaguna sanadka u qabsoomeen iyagoo quarter oo qaybiba mar iman doonta hadii la haydhaa. isbitaalkana uu ka dhismay aynu gacmaha is qabsano sida kalsoonida leed u soo dhaweyseen isbitaalka danta guud u bixiseen waad ku mahadsantihiin. marwada madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Djibouti iyo shacabka reer Djiboutina maadaama isbitaalka noo dhiseen waa dhaliyo dhasheed baanu nahay uliya dirkeed
in ka badan oo ka rajeynayna. Assalaamu calaykum. si kastaba ahaatee waxaa soo dhaweeyay isbitaalkani dadka ku dhaqan deegaanka Kalabaydh oo ku tilmaamay guul soo yeetay shacabka reer Kalabaydh iyadoo arrintan ay abuuri karto jawi shaqo oo ay ka helayaan aqoonyahanka gobolka Gabiley kuwaas oo cilmiga ay barteen ku dabiibaya dadka bukaanka ah ee la keeno isbitaalkan Kalabaydh. Kalabaydh waa deegaan taariikhi ah kaalinta labaadna kaga jira goobaha uu ka soo baxo dhaqaalaha dalka Somaliland. dadka ku dhaqan deegaanka Kalabaydh waa dad u bisil hanaanka iyo habka dawladnimo waxayna si weyn u soo dhaweeyeen dhismaha isbitaalkan iyagoo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay marwada koobaad ee dalka Djibouti oo ay ku tilmaameen geesiyad soo xasuusatay dhulkii ay ku dhalatay. waa Jacfar Caawil Hareeri, shabakada wararka ee Gabiley News Network, deegaanka Kalabaydh ee gobolka Gabiley.